salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay labadiblaysay duq dhalafalooqoobay oo taxdhiga duulka wareemata la yidhi kaasoo ciyoon la arkay isagoo nacdiir daba qaadaya barbaar aan waxba u geysan oo uu qolyaha islaam sheegta u gartay. ninkan oo lagu magacaabo stewart santiwer oo mar soo ahaan jiray la taliyaha wiilkii quursiga wax ku helay ee barack xuseen obama ayaa haatan lagu soo eedeeyey inuu yahay xadhig lama sitaan isla jeerkaasna adyad iyo aabi u geystay wiil aan waxba u dhimin. waxaa la dheehanayay guxushaagan oo ku jeesjeesiya diinta islaameed iyo weliba suubanihii udgoonaa ee nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee isagoo sidoo kalena ku wiirsaday gurboodka lagu haynabayo suryo cururuqo. qolyaha nabadgelyada ku qaybsan ee magaalada new york ayaa sheegay inay waayeelkan shookiga u handaabiyeen isla jeerkaasna uu haatan ku labadiblaysan yahay booraan dawacooyinka ceelkaasi tiyo aan dhayal halkaasi looga soo dayn doonin. geesta kalena teriya markii uu bilaabmay duulaanka haatan ka adurdhabaya bariga dhexe iyo inta haysa ayaa waxaa laxaa isku sii shareeray jirdiidka lagu muujinayo dadka aan xerudhalanka ahayn ee ku dhaqan cara maraykan gaar ahaan wixii islaamura. weli wararka maraykanka aynu dhex qaadayna ee wasaaradda teeriga iyo gaashaanka washington oo barqadii wax ku soo tutuweysay meelaha ay dadku ka hogmaan ayaa biniixisay in loo shilib dhigay duulaan ay hiirtii waaberi soo ekeeyeen cisjiidhaha waxorarah ee kooxda xuutiyiintu dambaabto kuwaasoo weerar kula soo jarmaada guday minawaar dagaal oo guuraynayay xeebaha badda cas gaar ahaan meelaha ku dhow biyaha badyarada cadmeed kaasoo ay xayiigtooda lahaayeen maraykanku. wararka ayaa tibaaxaya in cisjiidho maqiiqana ay qaadeen dabar weerar dhabar gaabisa kaasoo lagu ekeeyey markabkan oo ahaa kuwii loo soo waday geestan iyo xeebaha berbera. dowladda maraykanka ayaa ku tooqday inay soo daadisay isla jeerkaasna ay dhulka ogolaysiisay dhowr fiirmeerood oo ahaa kuwii soo ekeeyey weerarkii jarmadada ahaa. dhinaca kale kooxda guntiga gaaban ee dalka yaman ayaa lagu soo warramayaa inay u soo ciyaar gudeen islamarkaana ay degallo cusub ka xaadhxaadheen sida taniyaagaha gasiiradda mayuun oo coonka u saaran gacanka caanka ah ee baabulmandab. maraakiibtii agahaasi ka qamaadi jirta ayaa sidoo kale lasoo sheegayaa inay baqadartii agahaasi uga giigeen gaar ahaana kuwii reer bogox iyo dalkii duulka wareematada. kooxda guntiga gaaban ee ka idaadda haysata reeraha la weliye ceelka tehraan ayaa ciyoon dhaar ku martay inay wax daran ku dhigi doonto dhammaanba wixii gaalo urah ee agahaasi ka soo horka wareega gaar ahaana dhanka reer bogox oo ay ku dhaliileen inay baarka u fidhaan qolyaha haatan hororoobay ee wareemato la yidhi. haddii aynuu soo kacno dhankan iyo bugaanbugta beesha yurub dowladda fiinland ayaa la soo warinayaa inay iyaduna dhacanta u jiitay islamarkaana ay dhababtay qaydka ay la wadaagi jirtay dalka daanbari ugu tukaroon ee ruushka. xukuumadda helsinki oo ka mid ahay dalalkii wadnaha shiisha loo dhigay ayaa la soo sheegayaa inay ciidamo badan u soo duntay sayrimada ay la leedahay sida tan iyo moscow. fiinland ayaa ku doodaysa inay meelahaasi ka soo duseen islamarkaana ay dalkaas ka soo huluusheen doobas ciidaas iyo camaarka ka badan kuwaasoo ka soo hangagaaray geestan iyo cuurka baaniyaalada hindiya. waxay sheegtay inay xukuumadda moscow dabada ka soo turbaarinayso ama ay gadaal ka riixayso tacabirdoonka mejaasi lagu soo fanaasiiyey kuwaasoo aan lahayn dheg la qabto. waxaa la dheehanayay ciidamada ay dowladda fiinland agahaasi soo laba dhigayso kuwaasoo bacaraarinaya darmagangelya doon ah kuwaasoo u jeelana inay muska ooda ka soo dhigaan islamarkaana ay soo jiidhaan dhacanta ay gubniyada iyo cagamadooda dowladda fiinland ku meerisay. sidoo kale waxaa la dheehanayay dadka oo lagu liishaamayo baaruud iyo gumucyo aad u daran tiyo guud ahaana laga dhaar maray inay fooda soo geliyaan dalkan ay nafta kula soo eerteen ama ay miciin ka soo bideen. teriya aamintii uu ruushku duulaanka ku dhadhaaray dalka uu muruqa u sheegtay ee yukrain waxaa sii labalaxaasanaya ama sii kordhaya dadka doobadka ee isku soo shubaya dalalka bugaanbugta beesha yurub kuwaasoo uu uga bidhaamay waxoogay udug iyo dhaldhalaal ah oo ay nafahoodu bogeen. aqolyahan ayaa haatan ka hor yimi in dhoogooda laysu soo jimbaxo maadaama oo ay tan u arkaan tab iyo xeelad ruushku soo miiqay. haddii aynu u hangagaarno qaaradda afrika dowladda carateriya ayaa la sheegayaa inay dab iyo baaruud aan yarayn u soo dabaka dhiibtay ama ay soo taaratay gaarayucunta amxaarada ee faana taasoo waayahanba ahayd xadhig labasitaan iyo dar laga fadhi'i waayey oo kabtooda xanan geliyey xukuumadda abiy axmed.
dowladda asmar ah oo ciyoon ay kala hadaafeen ama ay kala ufoodeen qotiga abiy axmed ayaa la werinayaa inay halkaasi soo laba dhigayso dabaad u badan oo daba jaaryo leh oo jigre leh oo jiib leh oo dhexdhehle leh oo waqle leh oo booba leh oo maadhiin leh oo kaare leh oo kaal leh oo teeri leh oo qaash leh oo gamas leh oo garnay leh hubkan ayaa lagu soo warramaya inuu yahay mid aad u badan oo aan jaadkiisa hore dalka etoobiya loo soo gelin iyada oo fallaagada faana ay maagan tahay inay dhowaan maryo dhiigle kala furtaan reeraha xabuusheed ama ay soodhka isula galaan gaar ahaana labada dhinac ee waayada fiintu dhex miranaysay ninka shaarabaha miiqa ee siyaas afawarqi ayaa lagu soo warramaya inuu si weyn ugu xusul duuban yahay sidii dab loo kala dhex dhigi lahaa reeraha qobtolka isugu talan ee etoobiya kuwaasi oo uu arko isaga qaar ku soo maqan barbarka kale ninkan ka soo xabadaritay dhexyaalka oo muruqa ku haysta ee dumeer ah ayaa lagu soo warramaya inuu lug weyn ku lahaa kala kicii shalay ka dhacay dalka tanzaniya kaasoo ay isku saydheen dowladda etoobiya iyo duulka dabka la koodhaadha ee fallaagada oola ninkan ayaa la ogaa sidii uu qaybta weyn ugu lahaa duulaankii lagu gebagabeeyey reerihii ooda loo rogay ee maqal leh kuwaasoo jeer qudhoodu ay jaal ahaan jireen weli halkaad nagala socotaan waa taar t v haddii aynu isu xulubno sidan iyo garoowe madaxweynaha ay haatan birtu dul saaran tahay ee siciid cabdilaahi deni ayaa la sheegaya inuu ka dhaar maray islamarkaana uu la iyo laba kabood iska soo taagay daawo uu la qayto duulka mucaaradka ah ee u badan oosha ciise riyoole siciid cabdilaahi deni oo kalkiisii dhalaara koobani uga dhiman yihiin ayaa la werinayaa inuu guud ahaanba ku gacan saydhay erga waanwaan kula diiday oo u badnaa qolyo ka soo hangagaaray geestan iyo laascaanood kuwaasoo ay ugu bowdheeraayeen duulkii dabka sudhay xarunta gobolka sool siciid deni ayaa la sheegayaa inuu gar ku soo gooyey ama hadalba uu ku dhameeyey in doorasho loo diyaar yahay iyo weliba in gebi ahaanba habeenkii xalay ahaa laga soo qaado in taraha la siiyo reerka haatan u findhicilanaya sida ay wambarkiisa isaga dhookeen lahaayeen ee ciise maxamuud docda kale magaaladii garoowe ee ciyoon cimidha ahaan jirta ayaa la sheegayaa inay haatan tahay gelangel laga guuray iyo guri abaad ka gadaal markii ay qaxdhiisha ka dhigeen dhammaanba wixii dad ceelkaasi ku noola kuwaasoo nafta kula eertay geestan iyo meelaha aanay baaruuddu haatan ka seeraaraynin gurmadka labada dhinac soo gaadhaya ayaa la tibaaxayaa inuu gees walba ka soo qulqulayo tiyo amin walba la filan karo weerar la isugu garqabto iyo inay labada dhinac warmaha dhiigeeyaan weli halkaad nagala socotaan waa taar t v iyaduna dowladda somalilan oo ka halcelinaysa dhawaaqii ciyoon ka soo yeedhay gudaha dalka etoobiya ayaa sheegtay inaanu jirin wax wadahadal ah oo ay la yeelatay reeraha adasababa kaas oo ku ogog leh arrinka biyaha badda cas ee uu waayahanba yaahinayay qotiga abiy axmed wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda madaxweyne biixi ayaa gaballa ka caddaysay inaanu jirin haba yaraatee waxay kala jalbeebteen dalkan oo duu kala rogan tahay iyada oo malaha iyo muhmalkaba ka saartay arrinka ay la furiyo foodlaynayso xukuumadda ardasababa waxay bitisay inaanay somalilan cidna kala haasaawi karin meerinta xeebaha iyo marsooyinka la weliyo gaar ahaan aabooyinka berbera iyo saylac arrinkan ayaa ku soo beegmaya aamin waayahan hadal laga soo taagay wiilka qotiga ee abiy axmed oo isla soo jacfiiriyey inuu xoog iyo xeeladba ku yaahinayo meel biyo dhanaan leh oo ay wax ka soo dawdabiyaan ama ay wax kala soo degaan xukuumadda ardasababa somalilan ayaa hore u ogolaatay in etoobiya wax looga garooco maalgashigii ay reeraha carbeed ku sameeyeen haabada magaalo xeebeedda berbera sidoo kale xukuumadda ayaa u muuqata inay yaahinayso cad ka weyn kii hore loogu qoondeeyey badi dalalka geeska afrika ayaa la og yahay inay gaashaanka u dawiyeen hadallada taaqaawatiqan u badan ee uu isla soo galluubay ninka marta nabadda midigta loo saari jiray ee abiy axmed intaa iyo waryarida waxaanu ku darna moogin wax weydiina waal ka sheegnay maxamed aan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante bushaaro haddii aad dul barwaaqiyo xaramka aad u boqoosho hudheel aan beledkeen iyo barxaddeenna ku oolin halkii aad beegi lahayd baan kuu biyaaminayaaye ba dhegayso bulshoy hurdada boqol nooca haddii aad bila joogto beeceedaan ku dhibayn baradii xaramkeen iyo dhul bustaana ku yaala barako waa magaciisa hamogaanin bulshoy haddii aad maagan tahay inaad cumraysato bisha rabadaan iyo xilliyada kale ama aad doonayso inaad xaramka u boqosho shirkadda albaraka waxay ku haysaa hudheello casri ah oo aad ku degi doonto kuwaasoo qiimahoodu ku raali gelinayo waxay ku yaalaan magaalada barakaysan ee maka adiga oo wixii faahfaahin dheeraada kala xidhiiri doona lambarada shaashada kaaga